waxaa dhacday oo hadda ugu dambeysay saakay alasaydii dadkaas labadaas beelood beel ka mid uu qaxootiyihii ka ahaaday deegaankeeda waxay ku sugnaayeen qaxootinimo laga warqabo inay qaxooti yihiin dalka iyo dibaddaba laga ogyahay waxay maageen oo isku dayeen inay ku noqdaan deegaankoodii tuulada la yiraahdo Koogaar markii ay tageen dagaal ayaa la soo dirsay markay isdifaac maageen oo isdifaacayeen oo dagaalkii beeshi kale toga ka soo horjeeda iyo iska difaacayeen waxa dhabar jabin ku sameeyay ciidankii qaranka oo abaanduulku hogaaminayo odawaay nin la yiraahdo hogaaminayo iyo beeshi kale ka soo horjeeday ayaa dhabar jabin aan xad lahayn oo aan maaragtay ka baxsan qawaaniinta iyo ama islaamnimadaba ka baxsan ay ku sameeyeen saas darteed xasuuq xun oo waxa ka dhacay dad badan iyo maal badan lagu baabaashay waxaan u sheegayaa dawladda iyo maxay ahayd ii sheegeen ahalkeena iyo intayna dhan iyo intaan beesha cili cumaron ka dhaldhawo waxaan cabasho ka nahay nimanka ugu soo duulay ee noo soo gashta shaatiga dawladda ee maatadayna iyo wiilashayna baabi'inayo ee 24 saacna bilaqeysanayo kuna socdo shaatiga dawladda haddaan nahay degmada Cadalana intii gabar naga dambeeyso mana deey doono dad kalena kama tali doono arinta maanta dhacaysa 3 sano ka hor waxa la gaarsiiyay xafiiska madaxweynaha maanta waxa gaarsiinay xafiiska ra'iisul wasaaraha dibka maanta meesha ka dhacay waad arkaysaan waxa cabanayeen waa dadkii xaq u lahayd deegaankii dadkii dhulka sheeganahay oo lahaay way waxa meesha maanta fadhiyay waxa meesha soo keenay waa dareenkeen waxaan ku cabireynaa in aynu nahay dad nabadgelyada mar waliba dhankeedaan jirno horumarkuna waxaan rabnaa inuu meesha ka sii socdo markii aan ka weyno xuquuqdii aan ku lahayno dawlad goboleedka Hirshabeelle ayay maanta dan waxay u soo dhigatay in dhulkii iyo dadkii inay barakiciso waxaan dawladda dhexe ka codsanaynaa madaxweynaha iyo Premier ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka arintaas inay si degdeg ah ku soo faragalshaan beel way saga filantaa laakiin beel dawla kuma aado hubka meesha yaalo oo nugula dhabar jibahana dawladda dhaxo ka tagay shaalaleyn iyo ka siiyaan ninka la yiraahdo imaanduulka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo seedkiisa saanida military dhameystirantaana dawladda dhaxaad u dirtay hadduu maanta hartay abgaal ahaan iyo Cabdalla gadaal marsaday oo suucagtana mariyay dawladda dhaxayda ka jawaabayso farmaajo iyo ninka la yiraahdo Xasan Cali Khayre waxaan codsanaynaa haddii aad dhabar jibinta dad walaala aad diyaar u aheedeen ee aad ugu tala gasheen inay dhabar jibiyaan anaga isku keenay laysiin waxaan idin ilaahay hubka madaxtinimada iska dhiga waxaan rajaynaynaa inaad ka dhigtiin meel walba inaad xal u raadisiin oo xal waara ka keentiin laakiin beebera shaatiga madaxweynenimada soo gashateen haddii ayna ahaynin meeshaas la isku haysto waad ogtihiin si degdeg intaad ugu baxdiin dadka aad maxallida geysateen naga soo bixiya nabadna ka dhaliya duubabka beesha mudulood ilaa 25 sano wax way ka qabadiideen waxaan rabnaa markii labada beelood in la isku madax baneeyo si cid xoog badan ay degmadaas u qaadato sababtoo ah maamulka Hirshabeelle waa ku fashilmay markii ay la soo sabteen beesha Cabdalla Caroone ee mayidkii ciidamadii tuutada wataan maamulka Hirshabeelle meesha laga qaaday 3 sano ka hor haddana waxaa soo noqday in dawladda federaalka cabashadii loo gudbiyay labada beel hal isaga dhaxbaxo cid ajar lana qaadato dhulkaas cid kasta ajarkeeda ku tashato taas ayaan dhahayaa waxaan kale u sheegayaa nimankaas macaawisliida leed kuguma talagelin cil cumar inaad xasuuqdin shabaab ayaa leedii hubeeyay laakiin caadifada idin keenta meeshaas ya shabaabna waxaan u sheegayaa dawladda dhexe wax ka qaba diido inuu meeshaas soo farageliyo al-shabaab waa dawladda dhexe oo awood leh meeshaas joogto ma jirto xarakada al-shabaab waxaan ka codsanahay inay soo farageliso dagaalkaas maadaama ay wax noo qaban weyso dawladda dhexe